culimowdiin waxgarad aqoonyahan iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta si wada jira xadhigga uga jaray markisu Xanaanatu Majdi oo laga daah-furay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal gaar ahaan dhinaca koonfureed ee Hotel Rais. Mas-uuliyiintani ayaa kormeero kala duwan ku soo sameeyay galaasyada uu ka kooban yahay. Munaasabadani ayaa badiba kulmisay qaar ka mid ah culimada gobolka Awdal aqoonyahan waxgarad dhalinyaro hooyooyin. Ujeedooyinka loo aasaasay markiska waxaa ka mid ah in ilmuhu helo ciyaar iyo cashir wada socda, in kor loogu qaado mustawaha aqooneed ee caruurta oo ku dheehan aadaabta islaamka, iyo in caruurta la jeclaysiino waxbarashada, khaasatan quraanka kariimka iyo higaada. Waxaa faahfaahin kooban ka bixinaya Sheekh Xasan Daahir Yuusuf iyo Dr. Hodan Cabdi Ibrahim. باسم المدرسة وكليئة تاسي باهدو معها marka qaybta higaada ayaa ku xigta hadana waxa ku xigta higaadi markuu muddadii loogu talagalay ardaygu ku dhameeyo insha Allah taala inuu qaybtii xifdigeeda quraanka hadana uu bilaabo oo iyadana nidaamkeedii iyo manhajkeedii oo aan maraakiis fara badan oo dalkiisa dibadaba aan mushaawaro la sameeynay oo la tashanay oo waxa weeyaan aan khibrad badan u rarnay ay ku jirto inaan ku socodsiino hadii la yiraahdo taa markuu ardaygu ka gudbo quraanka dhameeyo inuu hadana muraajaco iyo subc qawi la galiyo taa markuu ka gudbo inuu muddada hadana tasxiixi iyo tajwiidkii iyo qiraa'aadkii xagga culumta kale hadana u sii gudbo marka waxa oran karaa markaskan waa markas yaani kaamil ajaanibka marka laga eego oo ka soo bilaabanaya xadaano ila القراءات العشر إن شاء الله تعالى بإذن الله مركز إن شاء الله تعالى أهدافتنا وحويان والهدف كوين وحويان إن واقع جرنا وحكب بدل ما استصني إلهنا سبحانه وتعالى وحكر رجينا هدف كأنه هرجليو أن أمضى يعني وح أنفعه إن كأنه أو نقلنا يعني تصالح إن شاء الله تعالى إن للضانيو المها مركب ومتقنا وجه الرئيس حضانة لجيو looga bilaabo halkii uu ka bilaabay ay noqoto halkii uu ku dhameynayay mataqana qiraa'aadkii iyo mataqana culumtii diiniga albaabkii uu ka galay noqoto waxay kaga duwan tahay muallimiin waxa u diyaar ah muahiliin ah majaal kasta higaada ha noqoto xadaanada ha noqoto xifdi quraanka ha noqoto intaba muallimiin u diyaar ayaa loo hayaa waxaan markasku aan isleenahay wuxuu kaga duwan yahay maraakista kale kaga duwanaan doona insha Allah biidni الواحد الأحد إنه نقضى وقت جيس محدد أنا واحد ضبط فرن ونقنين المها عمر جيسنا جدول هذا جدول كاسي حضانا وهذا عمر قاسي هجادي وكبرت أنت عمرك هجادي كجدبه أو حفظ جي قرآن كي قالوا وحاب بدن أو بدن قرآن كي جس كاسو سعدا لليه لكن عن هجادي وحبك جرانين عن مجلس قري كرينين هل كتاسيت هاي إن المها هذو حفظي هنا امتحان هجادة لقى قاضو هذه ومتقنا هجاد كبلابينا هجادة سيدي ugu fiicneed iyo waqtiga ugu kooban ee ugu munaasabsan oo ku dhameeyo waxaan kala markaska aan isleenahay adgaar kaga dhigtaan maraakista kale aad kaga dudaan inaan u diyaarino ilmaha quraanka xafidaya bay-ah hadana ku haboon da'diisi waqtiga u ciyaaro waqtiga quraanka uu xafido ayna ahaaninun xifdi baad ku jirtaa hakicin fadhi usha la hor haysto yani intaan taatu ka duwan inaan la nimaadno ilmahayga sa aan la jecelahay ilmayaasha kale oo dhan aan la jeclaado yani inaan bay-ah ku haboon oo waqti uu ciyaarayo isagoo ciyaarayo la xifdisiinayo bay-ah noocaas inaan u diyaarino ayuu markasku kaga duwan yahay aqsaamta markaska alqiraa'a walkitaaba yaa kamid ah oo higaadi ah xifdigii baa kamid ah xadaanadii baa kamid ah qaybahaas ayuu markasku u leeyahay waxay tiraahdaa carabtu al-ilmu fi as-sighari kan-naqshi 'ala al-hajari yani dhagax hadaad qorto haduu halka dad ka qaado meel kala geeyo iskuma sinmaayo dhagaxii qorniinkii weligii uu ku qornaanaya ilmaha yar markuu naqan yahay isagoo yar wax la baro waa kan naqshi 'ala al-hajari waa da'da ugu haboon ay tahay in laga faa'iideysto ay dad badan imika sameeyeen inay mataqaana dadkan inagula jira dagaaladu halka inaga weeraraani waa da'da 3 jir markii ilmuhu gaadho xadaanadii lagu geeyo wax kale lagu shubo
ilmahaas waxaas kama baxayo cimrigiisa wax kale la daawad siinaya cimrigiisa kama baxayo laano kan naqshi ala alxajar weeyaan kolka da'da inaan inaguna ka faa'iideysano aadaab alislaamiya aan barno maxadan quraanka aan barno ilmihii uu la koro aadaabtiisa uu la koro islaamnimadiisa uu la koro karihaata aanay naga noqonin dhaqan iyo caruurta xadaana laga yaayay iskuul baa laga yaayay laakiin caruur aan soo saarno jiil cusub jiil wax yaqaana siiba kitaabka alla yaqaana culum sharciya yaqaana way waxa jira 25 sanaba way isbedeshaa waxay ummadda markaa joogtahay waxa markaa hore ay ku soo koreen ay la soo baxaan waxaan rajaynaynaa 25 awlaada jiilkoogaas uu ku jiri doono inay jiil noqon doonaan quraanku xukumo quraanku hogaamiye u noqdo quraanku gacanta qabto qof uu quraanku hogaamiye iyo bay'a uu quraanku hogaayo mujtamacu quraan hogaamiye weligii ma halaabayo halka hadafkaygu ma aha xadaana la fura markas baa la fura ma aha waa meel fog waa 25 sano ama rubc qarniga maxaad bedeli kartaan intaa kadibna hadalka waxa ka daba qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kala soo qayb galay xafladda nagu haddana kulliyadda shariicada qaanuunkana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan jecelahay had iyo jeer in meelaha islaamigu bataan sababtoo ah islaamigaasi wuxuu keenayaa inay waxa weeyaan dadka shariicada islaamka bartaan ilmihi haddii maadi lagu bilaabo oo maadi wada hadhow la garanaya kulliyadaha u gali doono laakiin islaamiga haddii hoosta looga soo dhiso oo waxa weeyaan quraankii la soo baro oo culumta islaamka la soo baro hadhow jaamacad markuu gaadhana kulliyadaha u galaya waynu si saadaalin iyo quality-ga iyo ababinta wanaagsan ay meeshan ka socoto waxaan filayaa qofka ugu horeeya inaan sheekh noqon doono insha Allah waxaan rajaynayaa inay meel ka wanaagsan meelaha kala noqoto in meel runtii aanu adeegno meelaha ugu wanaagsan ay noqon doonto insha Allah isku dhaafay waxay tahay tayada jawdatu tacliim wax loo yaqaan jawdatu tacliimna waxay ku imaan kartaa in dhidbada loo aasaaso maxaa yeelay waxa la soo saarayo waa jiilka ummadan anfici lahaa waxaan rajaynaynaa insha Allah taala markaskan ama Xanaanatu Majdi in ay wax ku soo kordhiso haddii ay tayada tahay iyo wanaajintaba inay wax ku soo kordhiso xadaanooyinkii iyo maraakista kale ee quraanka ee jirtay insha Allah taala meel qurux badan ayaad doorateen waa makaan waasica sida ay muuqata farshaxanka laftiisa iyo sida loogu qoray aad iyo aad baan ula yaabay xuruuftii carabiga ee hijaayiga halka ku qoran tiradii xuruuftii kale ee maarksa ee Soomaaliga ama Laatiiniga maxaa la yiraahdaa ayaa ku qoran tiradii oo labadiiba ah ayaa qoran aragtidu waa wax cajiib ah ilmuhu ishiisa markuu inta ku dhifto isagoo xataa aan garanaynin baa laga yaabaa inuu ku sawirmo sawirka halka ku qoran uu ku sawirmo marka uu bartana xarafka qor marka la yiraahdo sidii uu gidaarka ugu yaalay maskaxdiisa ku sawirayd buu qorayaa waa meel waasica oo santarkii magaalada ku Suxufi Ishqi magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.